السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا تفسيرك سورة كوثر. سورة كوثر وسورة كسو دكتي مكة وحي سو دكتي النبي صلى الله عليه وسلم مدينة انت اوسن اهجرونين. سورة دا آياده هذا واسدح آيادات. سورة دا وحي كهاليسا هدية قالية ونبي صلى الله عليه وسلم لسيي إيوه waxyaabaha kaga aadan hadiidaas la siiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidoo uga mahadnaqi lahaa bay suurada ka hadlaysaa. Suuradu waxay ka hadlaysaa oo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka caragiliya waxa ka sheega nabiga sallallahu alayhi wasallam caaya inay yihiin dad khayr aan lahayn oo khayrkoodu go'ay maadaama Quraysh ay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku sheekaysan jirtay ayna dhihi jireen waa gablan khayr oo dhan malaha maadaama ay carruurtiisa ay dhinteen. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay la in shakartum la aziidannakum, haddaad igu shukrisaan, haddaad ii mahadnaqdaan waan idiin ziyaadinayaa, laakiin haddaad igu gaalowdaan wuxuu leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala cadaabkaygu wuu daran yahay buu leeyahay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa la amrayaa inuu ka mahadnaqo hadiyad qaali ah oo Allah subxaanahu wa ta'ala siiyey. hadiyadaas oo ah webi ku yaala jannada, webigaas oo la yidhaahdo Kawthar. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay webigaas labadiisa dhinac wuxuu ka samaysan yahay dahab buu ka samaysan yahay. carradiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay wuxuu ka udug badan yahay miskiga, wuu ka udug badan yahay. koobkiisa waxay tir ahaan dhan yihiin xidigaha cirka bay tir ahaan dhan yihiin. qofkii ka cabana weligiis ma oomayo buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam. marka waatana tafsiirkii suuraddii oo noo bilowday aan ka faa'iidaysanay insha allahu tacaala. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay bismillaah, magaca eebba baan ku bilaabayaa. arraxmaani, eebahaas oo naxariista naxariis guud, muslim iyo gaalbu u naxariista inta ay dunida joogaan. arraxiimi, naxariis gaar ahaaneed naxariista oo mu'miniinta u naxariista maalinka qiyaamo, naxariistana loo baahan yahay. innaa anaga actaynaaka ku siinay alkawthara, webiga Kawthar. culummada qaar Kawthar waxay dhahaan waxaa ku jira laba tafsiir. tafsiirka koowaad wuxuu yahay, waxaana maray tafsiirka koowaad cabdullaahi ibni cabbaas, wuxuuna leeyahay alkawthar waa khayrun kathiir, waa khayr fara badan. ummuna caaisha iyo saxaabo kalena waxay ku tageen inuu kawtharka yahay webi jannadu ku yaalo. waxaana xoog badan tafsiirka ah inuu yahay webi jannada ku yaala. tafsiirkaas baa xoog badan. waxaana ka garan karnaa xadiis uu soo saaray imaamu tirmidi uu soo saaray, innaa anaga actaynaaka ku siinay alkawthar, webiga Kawthar ku siinay. marka aan webiga Kawthar ku siinay maxaa lagaga baahan yahay inaad samaysid? fasalli, u tuko, lirabbika, rabbigaa u tuko, rabbigaada dartiis u tuko, makhluuq ha u tukanin. wanxar, rabbigaa dartiisana u dhuun dhow. fasalli lirabbika wanxar. fasalli culammada waxay ku fasireen qaarkood, fasalli waxay dhaheen waa ciidda adxa, wanxarna waa xoolihii la khalayay, waxyaabahaas bay ku fasireen. fasalli waxaad u tukataa lirabbika, rabbigaa dartiis u tuka, wanxar, rabbigaana dartiis wax u gowrac. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati lilaahi rabbi alcaalamiin. waxaad dhahdaa qul inna salaatii, salaadayda, wa nusukii iyo gowracayga, wa maxyaaya iyo noloshayda, wa mamaatii iyo geeridayda lilaahi rabbi alcaalamiin, Allah subxaanahu wa ta'ala bay u sugnaatay oo arrimahayga dhan noloshayda Allah subxaanahu wa ta'ala baa maamulo oo boqorkayga ah dheh baa lagu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam. fasalli waxaad u tukataa lirabbika, rabbigaa dartiis u tuka, wanxar, rabbigaa dartiisana wax u gowrac. inna shaani'aka, kan ku caragelina, huwa asaga alabtar, mid khayr dhan ka daba go-an asaga ah oo khayr dhan aan lahayn. bismillaah, magacayba baan ku bilaabayaa. arraxmaani, naxariis guud naxariista, arraxiimi, naxariis gaar ahaaneed naxariista oo mu'miniinta u naxariista maalinta ay naxariista u baahan yihiin ee maalinka qiyaamo ah. innaa anaga actaynaaka ku siinay
alkawthara webiga jannada ku yaal annaga baa ku siinay webigaas oo ah webiga aan ka soo warannay sifooyinkiisa qofkii ka cabana uu oon weligiis dib u qaban doonin fasalli waxaad u tukataa lirabbika rabbigaa dartiis u tuka wanxar rabbigaadana dartiis wax maaragtay u gowrac ama u dhuundhow wanxar waxaa loo isticmaalaa dhuundhowga baa loo isticmaalaa siiba geelaha dabxigana waxaa loo isticmaalaa xoolaha kale oo maaragtay la qalaayo sida arigii lo-dii waxyaabahaas fasalli u tuko lirabbika rabbigaa dartiis u tuka wanxar rabbigaa dartiisana wax u dhuundhow inna shaani'aka kan ku caro gelinaya oo ku leh waa gablan carruurtiis way dhinteen ku leh huwa isaga al abtaru kan khayr ka daba go-on ah oon khayr lahayn laakiin waxaa laleeyahay nabiga sala allahu caleyhi wasalam adiga waxaa tahay aabbaha khayrka baad maaragtay hoggaankiisa tahay hadallada ay kuleeyihiin maaragtay dhag jalakha u siinin ee diintaada wad baa lagu leeyahay nabiga sala allahu caleyhi wasalam allah subxaanahu watacalana wuxuu leeyahay innaa kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaa kaafinay kugu jeesjeesaya waxyaabaha ay sheegayaan allah subxaanahu watacaala baa maaragtay xilkaada qaatay oo waxyaabaha ay sheegayaan allah subxaanahu watacaala baa beeninaya nabigiisana ka difaacayo waxaan filaya marka tafsiirka suuradda in laga faa'iidaystay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu